that there is a lot of Musumasa in Togdel region. There is a development of contract. Msharki Lamasinin, Lababilot. Therefore, we requested the government of Somaliland to release our money 2 months' salary. We don't have transportation to the sites. We don't have the books. We don't have the pens. Everything is on our pocket. We don't have even the phones. We just pay our vouchers, and we need our money to be released as soon as possible. Unless our money to be released, without our money released, we do not work no more in Togdel. Kama shaqeyne no mardambe. waxaanu ka midnahay ardaydii loo qaatay diiwaangelinta maanta halkan waxaanu isugu nimi oo goobihii dhammaan ay u xidhan yihiin diiwaangelintu ka socotay in gobolka Togdheer in aan dhammaan arday shaqaalahaas shaqeynayay muddada 2 bilooda aanay soo gaadhin wax mushahara ama maxay ahayd wixii ay xaq u lahaayeen ee ay saxiixeen kontract ku galeen goobiina ay xidhan yihiin sidaana ku xidhnaan doonaan intay helayaan wixii ay xaq u lahaayeen yoomkoodii nin walba loo haysto dukaanku ka qaadanayay sharaabkii biyaha qalimaantii waraaqihii wax alla wixii ay qaadanayeen jeebkooda ka sii isticmaalayeen maca transportationkii aan xilliga mid ka hayn waxaanu halkan u nimi annagoo isku dhan oo goobihii oo dhan ah waxaanu wixii aanu ku shaqeynaynay 2 bilood ee aanu dawladda xaq u lahayn aan kontract ka qaadanay markii aanu weynay cidnoo timaadana aanu weynay ayaanu shaqadii halka ku joojinay